golaha deegaanka Gabiley ayaa yeeshay kalfadhi caadi ah kaas oo ay kaga hadlayeen ajendayaal dhowr ah oo ay ka mid yihiin dhisida dabdamis ku meel gaadh oo laga hirgelinayo magaaladaasi Gabiley iyo xaaladda biyaha magaalada Gabiley oo maalmihii ugu dambeysay ay ka soo cusboonaanayeen cabashooyin baahsani kalfadhigani oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha deegaanka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi una ka warbixiyay kalfadhigaasi maanta waxaan isugu nimi fadhigeeni 14aad caadiga ah inoo socday ee uu goluhu isla qaatay in lagaga hadlo 6 qodobkii u dambeeyay ahaa dhisitaanka guddi hoosaadyada golaha la qaadano arinta waxa inoo sharciya in fulinahaan aanu soo jeedino qaab dhismeedka 4 waaxood ee ay noqonayaan guddiyada cusub ee golaha deegaanku goluhuna wuxuu xaq u leeyahay inuu ogolaado inuu wax ka bedel ku sameeyo iyo inuu diido marka inta xildhibaan waxa waxaan akhriyi doonaa sida aanu fulinahaan isla garanay inaanu 4 guddi u soo dhisno guddi kasta iyo xubnaha ay ka kooban tahay kadib baynu gudageli doonaa xildhibaanada iyo arintooda guddiga dhaqaalaha iyo horumarinta 4 guddi waxay ka kooban yihiin 4 guddida dhaqaalaha iyo horumarinta guddida nabadgelyada iyo dhexdhexaadinta guddiga arrimaha bulshada iyo guddida howlaha guud qorshaha kumeel gaadhka ee golaha deegaanka ee Gabiley degmada Gabiley ugu samaynayo dabdamis ciidan dabdamis iyo xarun dabdamis oo u adeegta dadweynaha reer Gabiley waxa uu codeeyay 11 xildhibaan waxa diiday isla markaana shirka ka baxay 7 xildhibaan 6 xildhibaan waxa ka aamusay 1 xildhibaan waxa golaha deegaanku sharciyan wuxuu ku dhisay dood iyo isdhageysi iyo ixtiraam xildhibaanadu waxay xaq u leeyihiin wixii aragtiya inay soo jeediyaan oo ay qodobka ama hadba wixii laga hadlayo ka doodaan doodu waxay noqon kartaa dood qorshaha laga hadlayo lagu diidayahay iyo dood lagu ogol yahay waxay sharci noqotaa doodu oo guddida fulintana ay waajib ku tahay inay fuliso markay hesho doodaasi cod majority doodu hadday weydo cod majority waxay ka dhigan tahay dood aanu goluhu qaadanayn oo diiday arinta miisaaniyadda arinta dabdamiska 11 xildhibaan bay ogolaaday 6 xildhibaanna way diideen hallow ka aamusay 3daasiba waa sharciga marka la eegayo hadiiba 11 ay ogolaadeen golaha deegaanku saasu ku ogolaaday waana qaabka loo sameeyay golayaasha inay waxa arrimuhu u socdaan ay codka haleeriga sharci ku noqdaan xildhibaanada aragtidooda goluhu uu diiday ee laga aragti batay ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan habsami socodka shirka oo ay shirka ka baxaan buuq galiyaan dagaalamaan duubaan oo waxa rabshad isku dayaan inay geliyaan iyagoo doodooda guud raysatay meel u dayay arintaas waa dhaqan golaha deegaanka ee Gabiley ku cusub waxa wax sharciya ma aha xeerka iyo shuruucda golayaasha qaranka iyo golayaasha deegaanada dalkana waa arrin ka soo horjeeda ka u dambeeyay kalfadhigeeni 14aad wuxuu ahaa guddi hoosaadyada golaha deegaanka sida ka warqabtaan
goluhu wuxuu leeyahay 4 guddi hoosaad guddi hoosaadkaasi waxay leedahay waqti sidaa daraadeed goluhu wuxuu soo jeediyay in dib loo soo magacaabo la isugu eego guddi hoosaadkii isla markaana la kala diro 4tii guddi hoosaad hore marka waxa weeye حق الله أكبر محمد ودين تيفيق عالمي SBS TV مقالة قبلي